halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban efimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa galab jimco ah 6 bisha Oktoobar sanadka 2017 barnaamijka waxay la tahay ee galabta waxaad ku maqli doontaan saldhigga tababarka ciidamada Turkiga uu dhawaan ka furtay Muqdisho iyadoo aan eegi doono tababarka ciidamada Soomaaliya oo dhowr wadan ay kala tababarayaan iyo faa'iidada iyo dhibaatada ay arintaasi leedahay. Haddaba ciidamada Soomaaliya ma noqon karaan kuwa hal meel ka amar qaata mise tababaradani iyo tababarayaashani kala gedisan waxa ay jahawareer ku ridayaan khibradooda dagaal. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah khabiir dhanka militariga mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo xeel dheer ku takhasusay arrimaha ammaanka. Dhageystayaashuna qayb ayay ka yihiin barnaamijka. waxba soo kordhinaysa haddaan la helin ciidamo Soomaaliyeed oo daacad u ah dalkooda si ay u hantaan oo ula wareegaan nabadgelyada dalkooda. saldhigga military wuxuu garab iyo gaashaan u yahay dhismaha ciidan qaran oo cudud leh oo xoogan oo Soomaaliya yeelato maadaama Turkigu uu ka qayb qaatay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo fadhiya studiyaha BBC ee London. Cabdirasaaq mahadsanid xasan. abaalgudka Nobel ee nabadgelyada ayaa waxaa la siiyey hay'ad u halganta joojinta hubka nuclear-ka oo lagu magacaabo ICAN. guddida Nobel ee Norway ayaa waxay ammaaneen ururkaas tallaabada ay isku dayayaan in la helo heshiis mamnuuca hubka nuclear-ka waxaanay ku baaqeen wadahadalladu in ay keenaan hadhowto tartiib in loo baabi'iyo nuclear-ka. waxa ay ka digeen iyagu khatarta ka iman karta ee maanta adduunka haysata muddo sanada tii ugu badnayd dhinaca nuclear-ka. ururka ICAN waxa ay sheegeen abaalgudkan la siiyey inuu yahay fariin loo dirayo madaxweyne Trump iyo waqooyiga Korea iyaga oo ay sheegeen inay isku dayayeen tallaabo lagu cabsiinayo hub nuclear in la isticmaalo oo aan sharci ahayn. agaasimaha guud ee ururkaasi Pietro Sven ayaa BBC-da waxay u sheegtay heshiiska mucaahadani inuu kordhinayo kalsoonida inay wax ka soo bixi karaan xataa Mareykanka iyo waqooyiga Korea haddaanay saxiixin. I think that other prohibitions on weapons have shown really waxay la tahay in hubka qaanuun ahaan la mamnuucay qaarkii ay ka muuqatay sida xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyada adduunka ay wada gaaraan ay raad ugu yeesheen habdhaqanka xataa dawladaha aan saxiixin heshiisyadaas. tan waxaanu ka aragnay hubka biologicalka ah iyo midka kiimikada oo mar allaaliya markii la mamnuucay isbedello waaweyn ay dhaceen. Kuuriyada waqooyi waa laga yaabaa inaysan saxiixin heshiiskan iminka. Mareykankana sidaas oo kale inuusan saxiixin laakiin taa beddelkeeda mid qayr sharci ah sida uu qabo xeerka caalamka u dhigan taasoo iyadana saameyn weyn la timid. guddida Yurub ayaa waxa ay sheegeen heshiiskii nuclear-ka ee lala galay Iiraan inuu shaqeynayo dhinacyada oo dhan oo la doonayo halka in lagu hayo. waxa ay sheegeen barnaamijkan la doonayo hubka nuclear-ka in lagu joojiyaa in uu yahay mid waari doona haddii la eego xaaladda nuclear-ka Iiraan. waxaanay sheegeen in loo baahan yahay dhammaan dhinacyadu inay damaanada keenaan. madaxweyne Trump ayaa dhawaan waxa uu sheegay Iiraan niyaddii laga rabay dhinaca heshiiska inaanay keenin oo laga yaabo in uu diido taasuna ay dhaliso inay furanto in Koongareeska Mareykanku mar labaad cunaqabatayn ku soo rogaan Teheraan. Ruushku waxa ay sheegeen heshiiskii lala galay Teheraan in uu yahay mid halka uu marayaa iminka ay tahay tii loogu talagalay. dowladda waddanka Spain ayaa waxa ay sheegtay inay soo saarayso sharci u fudaydinaya sharikadaha waaweyn inay xarumahooda kala soo wareegaan sharci ahaan Catalonia. go'aankaasu waxa uu ka dambeeyey markii sharikadda ugu weyn ama baanka ugu weyn ee deegaankaasi CaixaBank ay iyagu ballan qaadeen in laga yaabo xaruntooda inay goobta ka soo raraan. sababtuna waxa ay tahay siyaasadda murugsan ee goobta ka taagan ee ku lug leh aftidii la isku khilaafsanaa ee dhacday Axaddii. isla markaa dowladda waddanka Spain nin wakiil uga ah Catalonia ayaa waxa uu ka bixiyey raaligelin sidii askartu ay ula dhaqantay dad rayida oo la sheegay dad badani in ay ku dhaawacmeen aftidii ka dhacday gobolkaasi.
qaramada midoobay ayaa waxa ay ku tilmaameen meel loo maraa inaanay jirin rohingya muslimiinta ah oo ay sheegeen Myanmar kuwa degan xaaladuna ay tahay mid aan la aqbali karaynin oo loo baahan yahay meel loo maro madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrinta bini'aadminimada xafiiskiisa ku yaala Geneva Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay inay jiraan 100,000 oo dadka Rohingya oo degan Rakhine Myanmar inkasta oo weli rabshada ay goobaha ka jiraan shir jaraa'id oo ku qabtay Geneva waxa uu sheegay qaramada midoobay diyaar inay u yihiin suurtagal in ay u noqoto in ay wax ka qabtaan haddii dad kale oo dheeraad oo Rohingya ay u soo cararaan dhinaca Bangladesh ilaa iyo hadda milyan qof oo muslimiinta Rohingya ayaa ka soo cararay Myanmar ilaa iyo bishii August oo imika degan Bangladesh wararka imanaya dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegaan ciidamada dawladda Suuriya oo gacan ka helaya ciidamada cirka ee wadanka Ruushku in ay soo gaareen duleedka magaalada ugu weyn ee Islaamiyiintu gacanta ay ku hayaan saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Mayadiin waxa ay ku taalaa bariga deegaanka Dayrazuur waxaana ay tahay meelo dhul badan ay weli ka haystaan Islaamiyiintu iyadoo la sheegay culays badan inuu kaga imayo ciidamada dawladda iyo isbahaysi kale oo ay leeyihiin Kurdiyiinta iyo Carabtu ilaa iyo hadda ma cadda inta tirada dadka magaalada ka soo cararay ama ka baxay laakiin waxa la hubaa maalmihii ugu dambeeyay dad aad u fara badan in ay goobaha ka soo cararayeen warkii dunida waan laga inta aan idinku celiyo Nairobi socoteena waa laantafka Soomaaliga ee BBC-da barnaamijka waxay ila tahay ee galabta waxaanu kaga hadli doonaa saldhigga tababarka ee ciidamada dhawaan ee Turkiga ka furtay Muqdisho iyadoo aan eegi doono tababarka ciidamada Soomaaliya oo dhowr wadan oo kala gedisan uu midba dhankiisa ka wado ciidamada Soomaaliya waxa haatan tababaraya wadamada Uganda, Kenya, Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale haddaba ciidamada Soomaaliya ma noqon karaan kuwa hal meel ah ka amar qaato mise wadamadaasi kala gedisan ee tababaraya ayaa waxa ay jahawareer ku ridayaan khibradooda dagaal su'aashaasi iyo kuwa kale waxaan u bandhigi doonaa khubarada ka qayb qaadanaysa barnaamijka waxa barnaamijka nagala qayb galaya oo martin ugu ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdullaahi Colaad Rooble oo khadka telefoonka uga jira magaalada Beledweyne General Ibrahim Maxamed Gubir oo ka tirsanaan jiray ciidamadii qaranka Soomaaliya khadka telefoonka magaalada London ayuu ku jira sidoo kale barnaamijka waxa marti inoogu ah Cabdiwali Cismaan Garaad oo ah khabiir ka faalooda arrimaha ammaanka waxa uu ku sugan yahay stuudiyaha BBC-da ee magaalada London aan ku bilowna wasiir Colaad wasiir muhiimad ma leedahay saldhigan ama ma leeyahay saldhigan Turkiga ee tababarada dhawaan laga furay magaalada Muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا BBC da saaxiibada kale iguna jira barnaamijkana sidoo kale khubarada waa salaamaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale insha Allah waa salaamaya iyagana waa mahadsan tahay xaqiiqatan ma ahan mid runtii daa ku xiran in muhiimad uu leeyahay dawladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed dhamaan dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad garan kartaa marka aad leedahay base maxay ahayd ciidanka xoogga dalka oo tababarkiisa iyo ururinta ciidankiisa iyo xero uu leeyahay oo runtii xero aad iyo aad oo aan dawladda Turkiga ugu mahadcelinayna xero aad iyo aad standardka caalamka u dhisan markii aad leedahay iyo markii maxay ahayd ciidankaada xerooyin kala duwan oo ama wadamo kala duwan lagu tababarayo marka ahmiyad runtii aad iyo aad u weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed xeradaasi dawladda walaalaha ee Turkiga naga saaciday ciidanka xoogga dalka in lagu tababaro dhanka kale aan fiiriyo General Ibrahim Maxamed Gubir waa dhageysanaysay wasiir ku-xigeenka arrimaha gaashaandhigga Soomaaliya iyo muhiimadda uu ku sheegayo saldhiggaasi adiga saama kula muuqataa sidaas iyo si kasii weyn bay ula muuqataa saldhiggaas amaba kulliyaddaas loo dhisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed amaba dawladda Soomaaliya loo dhisay waa guul usoo hoyatay kulliyado kale ayaa mataqaanaa ka horreeyey kulliyadaas oo ay dhiseen midowga Sovieti kulliya
oo Soomaalida u dhisay oo akademiyada jaalisiyaad la dhihi jiray ama kulliyadda jaalisiyaad ayaa ka horreysay iyada kulliyada kale ka horreey oo Axmed Gurey sida Xalana oo Bootikawa la dhihi jiray ayaa mataqaanaa jiray kulliyadda hadda ugu dambeysay oo barnaamijkan uu ku saabsan yahay waa guul aad iyo aad u weyn oo u soo hoyatay qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ayaan leeyahay anigu waad mahadsan tahay cabdiweli oo khabiir ku ah arrimaha ammaanka waad dhegaysatay wasiirka iyo generaalkan hore ee militariga Soomaaliya adiga ma kula muuqataa muhiimadaasi walaal horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa salaamaya generaalka iyo wasiirka iyo dhammaan dhegaystayaasha arrinta muhiimka waxa weeye in laba loo kala qaado dalka Turkigu kuliyad buu u dhisay ama muxuu ahayd meel lagu tababarto ciidanka Soomaaliyeed oo looga maarmo meelihii sida Uganda iyo Kenya United Arab Emirates iyo Ethiopia arrintaas waa sida wasiirka ay sheegeen jananku waa arrin soo dhaweyn leh oo fiican laakiin waxaan u maleynayaa su'aasha la isweydiiyay inayna saas ahayn inay ahayd saldhig military oo ciidanka Turkiga saldhigga militariga arrintiisu maaha kuliyad la dhisay waxa weeye muxuu ahayd waa arrin muxuu ahayd xiriir la leh masaalixda Turkigu leeyahay oo uu ka leeyahay dalka ka leeyahay taasna waxay u baahan tahay muxuu ahayd masaalixda inay noqoto isku bedel masaalixda anagoo aan ku leenahay muxuu ahayd Turkiga markay intaan helaan anaguna maxaan helaynaa su'aasha halkaas ay rabtaa in laga fiiriyo muxuu ahayd kuliyad muxuu ahaa baana loo dhisay aniga waa su'aasha waa igala mugweyneed waxa kale oo su'aasha qayb ka ahaa ciidankan yuu ka amar qaadanaya ciidankan lagu soo tababaray Uganda Kenya United Arab Emirates iyo Ethiopia amar qaadashadiisu iyo muxuu ahayd tababar isku nooca ma yeelanaya taasna waxaan u maleynayaa su'aasha qayb bay ka ahayd waxaad saxan tahay su'aalahaasi waan u geli doonaa laakiin waxaan jeclaan lahaa horta saldhigan intaan ognahay waa saldhig tababar ciidamada Turkiga ay ka fureen Muqdisho sida la sheegayna ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale Afrikaan lagu tababari doona waa intaan ognahay su'aasha waxa weeye dawladda dadka Soomaaliyeed Soomaaliya iskuma filla ismana bixin karto inay ciidan kaligeed dhisato hadeer taariikhdana way ahaan jirtay markii muxuu ahaayto ama Soviyetkii ama xilligii ay dhamaanaysay dawladda gumaysiga Talyaaniga uu sii kacayay oo ra'iisul wasaaraha oo ahaa Allahu naxariistay mudane Cabdullaahi Ciise 12 Oktoobar 1960 yaa waxaa la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana laga soo wareejiyay ciidankii uu tababaray Talyaaniga oo police ahaa qaybta birmadka la dhihi jiray yaa laga soo wareejiyay ciidan marka waxaa la isku amaamuday 8 hormood ah oo ka kooban 8 hormood adigu ilaa iyo muxuu ahaayto 3,000 ugu badnaan gaarahay ciidankaas oo ahaa meeshii laga lug bilaabay kabacdina markii Soviyeetku oo dagaalkii qaboobaa kuliyadu dhisay ciidan buu tababaray waxaad moodaa muxuu ahayd angalkaas hadii la fiiriyo Soomaalidu waa ka faa'iiday marka hadii Soomaalida kuliyad baa loo dhiso Turkiga u dhisay maslaxa ma ku jirtaa halka hadii su'aashu saas tahay waxa weeye waa laga faa'iidaya waana laga nasanayaa muxuu ahayd mid kale arrin kale jirto very important halka aan raba inaan raaciyo arrinta kale oo muhiimka waxa weeye xilligii lagu jiray waxa isbedela nooca dagaalka waxaana loo baahan yahay in sideeda loola qayb qaado marka waxa loo baahan yahay ciidamo casriya iyo tababaro casriya oo xilligan iyo dagaalka iyo nooca cadawga hadba la face gareynayo inuu ahaado Cabdiweli su'aasha ama shakiga aad muujinaysay tababar oo kaliya ma yahay saldhigaasi tababarada waxaan ka filayaa inuu ka jawaabi doono wasiirka oo khadka telefoonka uga jira magaalada Beledweyne Cabdullaahi Colaad Roble waa mahadsan tahay walaalo waa mahadsan tahay walaalkay Cabdiweli asagana waa mahadsan yahay runtii waxaa muhiim ah xaqiiqada dhabta ah inaan aadno haddii ilaahay yiraahdo annaga wasaaradii gaashaandhigga waa wax isku qasan oo runtii mugdi ku jira ma ahan waa wax cad meeshaani ma ahan saldhig oo maxay ahayd ciidamada Turkiga ay leeyihiin ama saldhig dawladda Turkiga ay leedahay ma aha
waa dowladda turkiga sida adduunkaba isku saacidoo kale ugu dhexeeya maxay ahayd wax wada qabsi ugu dhexeeyo maadaama ay naga saacidayso horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha hadda ka hor naga soo saaciday haddana waxay naga saacidaysaa in maxay ahayd ciidankeena haddii ilaahay yidhaahdo xarun aan maxay ahayd ciidanka ku tababarno macalimiin yes waa jiraan macalimiin turki ah ee tababarkaasi bixinaya laakiin ma ahan sida saldhigyada caalamka ay ku leeyihiin dowladaha qaar ay ku leeyihiin base military ay ku leeyihiin ma ahan base military oo dowladda turkiya ay leedahay ma ahan waa xarun xero ciidamada dalka soomaaliya runtii lagu tababarayo waa maxay ahayd gobolada dalka iyo ciidamada dhammaan gobolada dalka soomaaliya oo dhan laga keeni doono meesha lagu tababarayo barnaamijkii lagu qaban lahaana waa u diyaarsan yahay ciidan soomaaliya oo isku dhafi in meesha lagu tababaro oo tayo leh oo aada runtii xirfadooda u sareysa in lagu tababaro si cadowga runtii loogu adkaado ma ahan sida walaalkii cabdiweli uu sheegayo saldhig ciidan ee dowladda turkiga ee leedahay oo dowladda turkiga u gaar oo diyaaradaheeda ka duulaan oo kusoo degaan oo saldhig u ah ma ahan taas waa caddaynaya khudbadii runtii waxaa aada xusin u mudan khudbadii ra-isul wasaaraha inay ku jirtin maxay ahayd inay warka oo caddaa ee ahayn runtii wax oo kuma ku jira inaysan ahayn marka intaasaan runtii u sheegaya walaalkey waa dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliyana runtii calaaqaad fiicana ka dhexeeya oo wasiir waxaa jirta markii la furayey saldhigaasi tababarka in saraakiishii ka qayb galay ay sheegeen in saldhigaasi lagu tababari doono ciidamada soomaalida iyo kuwa afrikada ka socda wadamada kale afrika marka maxay taasi ka dhigan tahay ma waxaa loo fasirin karaa in saldhigu yahay mid turkiga leeyahay oo danihiisa afrika uu ka leeyahay uu ku fashado mise oo mid ciidamada soomaalida oo keliya loogu talagalay inaad kala caddayso waa mahadsan tahay sidaad ka warqabta innagaba maxay ahayd ciidamadeena waa lagu tababaraa maxay ahayd wadamada qaara lagu tababaraa hadda ciidanka hadda loo joogo lagu soo tababaray sida kenya uganda jabuuti ethoobia wadamo saas oo kale wax runtii problem ama keenaysa haddii ciidamo xirfada turkiga iyo xirfadeena ayagoo ka faa'iidaysanaya in ciidamo kale lagu tababaro wax problem ma keenayso laakiin heshiis qoranaa jira wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda gaashaandhigga turkiga iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ay gaareen in maxay ahayd saldhigaasi ay naga saacida xeradaasi dowladda wasaaradda gaashaandhigga turkiga ee naga saacida waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u baaqo generaal ibraahim maxamed gubir oo ka tirsanaan jiray ciidamada soomaaliya generaale ciidamadu in loo furo tababar gudaha soomaaliya oo keliya oo gudaha soomaaliya saldhigyo looga furo oo lagu tababaro maxay kaga duwan tahay in dibadda la geeyo oo lagu soo tababaro horta artista aan ku saxay ciidamada qaranka soomaaliya kama tirsanayna haddana waa ka tirsanay aan kula hadlaya aan ku saxay shukran meel aan ku rusqaysanay oo xilna wala tiriyo ma jiro si fiican taas waa ka saxa tan kale waxa weeye kulliyadda sidoo wasiirku u sheegayo kulliyadda ma ahan kulliyad loo dhisay dowlado kale loo dhisay ma aha waa kulliyad loo dhisay ciidamada qaranka soomaaliya loo dhisay dowladda soomaaliya loo dhisay weeye ma ahin kulliyad loo dhisay ciidamo kale bal horta taasaan ka qancinayaa walaalkay cabdiweli ma lagu tababari karaa ciidamo kale weeye waa lagu tababari karaa sababta waxaa weeye kulliyadda jaalasiyaad ee xamar ku tiilay ay madowga soviet dhigseen waxaa lagu tababari jiray ciidamo afrikaane oo kala gedisan ayaa lagu tababari jiray waayo waxay ahayd kulliyada ugu casrisan afrikada bari ayay ahayd generaal marka su-aasha usoo laabo marka su-aashaan usoo laabanaya haye su-aashi sow ma aheen su-aashu waxay tahay in gudaha lagu tababaro iyo in dibadda la geeyo maxay ku kala duwan tahay soomaalida waxaa ogeyn ciidamadooda in la qaadi jiray in badan wadamo uganda meelo kale la geeyo lasoo tababari jiray hadda gudaha ayaa laga furay maxay faa'iido u leedahay oo kaga duwan tahay kuwii dibadda la geynayay aad iyo aad bay u kala gedisan tahay kulliyadda hadda la dhisay ciidanka lagu tababara wuxuu noqonayaa ciidan lagu tababaray nidaamka iyo wadaniyadda
lagu tababaray buu noqonayaa. wuxuu noqonayaa ciidan ka amar qaata saraakiisha soomaalida oo tababaray. saraakiil turkiya keliya ma tababarayso ogow. saraakiil waxaa jooga soomaaliya, saraakiil xigeen soomaaliya ha jooga. ciidanka waxa tababaraya saraakiil turkiya keliya maaha. marka haddaan usoo laabto su-aashaada oo maxay kaga gedisan tahay? waxay kaga gedisan tahay nin dalkiisa lagu tababaray iyo nin dibad ku soo tababartay aad bay u kala gedisan yihiin. faa'iido badan baa mataqaanaa ku jirta kulliyadaad la dhisay oo ciidanka lagu tababarayo. shukran aad u mahadsan tahay. halka dhegeysan naga socotaan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da barnaamijka waxay la socodsiinayaan anigoo Xasan Cali Geelle. dhegeystayaal ayaa ra'yigooda Facebook noogu dhaafay gaar ahaan kuwa codkooda soo duubay. waxaan rabaa bal inaan ra'yigooda iyo su'aashooda aan dhageysano kadibna aan isugu soo laabano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد الوهاب ضيف شيخ سامع عبد الجيسي دجن حرمت قبل كأوضل إلى مقالة بورما. أنا جو حيرتها السردقة من التري tababarka loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada Soomaaliya ee dalka Turkiga uu ka furay Soomaaliya gudaheega inay tahay wax weyn oo ay soo kordhisay dawladda Turkiga iyo hadiyad ay u soo hadiyadeysay walaalaheeda Soomaaliyeed ee ay markasta hiil iyo hoogaba la garab joogto. laakiin waxba soo kordhin maysa haddaan la helin ciidamo Soomaaliyeed oo daacad u ah dalkooda si ay u hantaan oo ula wareegaan nabadgelyada dalkooda. tarkina waa ku mahadsan yahay, laakiin ciidamada iyo dalalka reer galbeedku iyo midowga Afrika intaba haddaanan ka helin taageero rasmi ah waxba qaban mayso. magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaaji Daahir oo jooga degmada Cali Xeyd oo ka tirsan gobolka Awdal. marka ugu horeysa waan salaamayaa bahda BBC martida barnaamijka qayb galasa iyo dhageystayaashaba. runtii saldhigga military wuxuu garab iyo gaashaan u yahay dhismaha ciidan qaran oo cudud leh oo xoogan oo ay Soomaaliya yeelato, maadaama Turkiga uu ka qayb qaatay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya sida dhismaha jidadka, wadooyinka, isbitaalada, caafimaadka, waxbarashada. runtii Turkigu waa wadan quwad leh, waa wadan muslima, waa wadan ay ka go'an tahay in ummadda Soomaaliyeed wax uu la qabto. waa wadan runtii ummadda Soomaaliyeed taariikh dheer ku dhaxay. waxaa loo baahan yahay in Soomaalidu marka hore ay joojiyaan isqa qabsiga dhexdooda iyo mashquulitaanka ay isku mashquulsan yihiin, kana faa'iideystaan wadamada runtii waaweyn ee adduunyada u soo jeesatay dalka Soomaaliya wax la qabato sida Turkiga oo kale. Assalaamu calaykum dhamaan bahda BBC-da barnaamijka dooda galabta. runtii waa aan xasaasi ah saameyn xoogan bay leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in dawlado kala duwan tababar u sameeyaan, waana laga fahmaa dhammaan dalka Muqdisho oo kale. waxaa arkaysaa dad dhahaya waxaa haysta ciidamada imaaraadka iyo ciidamadii kuwii kale militariga, waxaa haysta nabad sugidii iyo imaaraadka. taasi waa saameyn xoogan ee dalka ku yeeshtay, waana laga fahmaa iyagoo kulligood ay Soomaali wada yihiin. sida lagu heli karo xalkoodana aad buu u fudud yahay, sababtoo ah waxaa la samayn karaa xalka waxaa lagu heli karaa markii tababarka u dhameeyaan dhammaan dowladaha in loo sameeyo tababar kale oo khaas ah. السلام عليكم بهذا BBC Soomaali. magacaygu waa Liibaan Maxamed Suruuc oo jooga magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya. haddaan ra'yi ka dhibto dooda galabta aan salaamiyo ugu horreyn daadiyaha barnaamijka iyo asxaabta dooda qaybgaleysa. saldhigga military ee dhawaantan wadanka Turkiga uu ka dhistay Soomaaliya waan soo dhaweynayaa, waana arrin runtii tallaabo aad u wanaagsan oo aad aniga iga farax gelisay, waayo ciidanka waxay saldhiggaasi faa'iido weyn u yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo lagu tababari doono. waxaa la keeni doonaa in wadanka mardhow AMISOM ay ka hantiyi doonaan oo ayagu la wareegi doonaan, ayna soo laaban doonaan sharaftii iyo qiimihii ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Turkiguna waa wadan runtii si wanaagsan hadda wadanka ula shaqeeyo oo ah geesiga wadamada muslimiinta. waana mahadsantii bahda BBC Soomaali fursada wanaagsan ee aad na siisay. aad ay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha BBC-da ee ra'yigooda Facebook noogu soo duubay. martida sida aad la socotaan haddii aan ku bilaabo Cabdiweli. dadkan waxay ka dhawaajinayaan dalal aan isku siyaasad ahayn oo hal ciidan ah oo Soomaaliya leedahay soo tababarayo, qaarkoodna ay leeyihiin waa wadamo kala dan ah oo dal walba uu dan gooni ka leeyahay Soomaaliya. marka arrintaasi soo saameyn kuma yeelanayso ammaanka Soomaaliya.
walaal waa yeelanaysaa mana nagu cusba arrin nagu cusub maaha markii ugu horreysay oo ciidan aanu samaysano ciidan muxuu ahayd military ah ciidankanaga waxaa lagu tababarahayay waddanka talyaaniga kabacdina waxaa muxuu ahayto masar baa tababar loo geeyey kabacdina soviyedka tababar loo geeyey ciidankaas marka tababarada u baxaya wuxuu ahaa ciidankii saraakiisha ahayd oo hogaamiyaasha ahayd laakiin ciidankii kale waxaa lagu tababari jiray muxuu ahayto xalana lagu tababari jiray markii hore Portugal la dhihi jiray generaalka sheegay ciidamadaas markay dibadda ka yimaadaan waxay ka imaan jireen iyagoo muxuu ahayto siyaabo kala duwan u fakaraya luqad kale muxuu ahayto ku hadlayo muxuu ahayto fahamkooda ay ka fahamsan yihiin qaab dagaalku uu ka duwan yahay istaraatiijiyada iyo sida muxuu ahayto loo soo tababaray iyo muxuu ahayto indhahooda meeshuu arkahayo iyagoo ay kala duwan tahay yay soo noqon jireen waxaa lagu dadaalay muxuu ahayto in la mideeyo aragtidooda waxaa la furay iskuul baa laga furay muqdisho la yiraahdo dugsi shanaad marka waxay ahayd in muxuu ahayto dadkan aragtidooda la mideeyo la isugu keeno muxuu ahayto ciidanka oo ciidanka sidaas oo kale sidoo sidaas u ahaa ciidanku u fiicnaa haddana waa laga maarmi waayay arrintii way kaabi weyday taasaa waxay keentay kuliyado dalka gudihiisa in laga furo oo muxuu ahayto aqoon-yahankii iyo muxuu ahayto sarkaalkii beritu uu ka soo baxa dalka gudihiisa arrintan marka sida generaalka iyo wasiirka iyo sheegeen waxay leedahay jidkaas yay haysataa online la haysataa laakiin hal arrin baa muxuu ahayto loo baahan yahay inayna sibix nagu gelin hoos noo gelin arrinta muhiimka oo inayna noo dhuuman waxa weeye markii ay dagaalkii labaad laga soo laabtay oo adduunku muxuu ahayd xaaladiisu ay khalkhal noqotay oo baahiyo badan jireen dowladaha waxay ka faa'iidaysteen sida dowladda Mareykanka oo kale inay Philippine saldhig military ka hesho si susfa ah oo ay tiraahdo deeq dhaqaale yaan ku siinayaa muxuu ahayd deeqdaas dhaqaale bedelkeeda kabacdi markii la degay oo muxuu ahayd dagaalkii iyo culayskii uu fududaaday Philippines yaaba kale u fakarayso oo waxay lahayd warbalu kaaja aniga dhulkaygii baad haysataa intaanaad ku tasarruftaa muxuu ahayd saad doontaad ka yeeshaa intaanoo dalbaad muxuu ahayto ku tababarataa intaan ka dhaco marka horta bal waa deeq baan ku siiyaa haydhihine kira weeye dheh mudda marka muxuu ahayto su'aalahan waxa waaye su'aasha hadda meesha taagan hadday su'aashu tahay kuliyad baa naloo furay oo casriya oo ciidankanagii muxuu ahayto isu keenaysa oo fikradihii muxuu ahayto kala duwanaa oo dadkan muxuu ahayto nashaadka iyo heesaha kala duwan meelaha kala duwan ku soo qaadahayo oo siyaabaha kala duwan u fakarahayay midaynaysaa oo annagiibaa halkan gacanta ku haynayna waa soo dhawaynaynaa waa war fiican weeye laakiin waxa weeye wasiirku wuxuu yidhi hadalkiisa waxaa ku jiray waxaa la galay heshiis qaran عندها اسمه كاس ويا ميد كمهم كا محويا هشيس كقرن لا galay muxuu yahay muxuu ahayto waxyaabaha uu ku fadhiyo dib maxaa noo soo raaci doona maxaan ku bedelanaynaa turkigu muxuu rabaa su'aalahaas weeye muxuu ahayto waa dhameeyay mahadsanid filayaa inuu wasiirka ka jawaabi doono laakiin cabdi wali su'aashaydu waxay ahayd in ciidamadan dalalka kala gedisan soo tababarayaan Soomaaliya amaan ahaan halis ma ku noqon karaan oo kaliya horta walaal ma u malaynaya aniga halis inay noqon karaan waayo ciidanku hadduu yahay ciidan loo tababaray si ciidan ah wuxuu yeelanayaa xarun dhexe oo hogaamineed ciidankuna wuxuu amar ka qaataa muxuu ahayd hogaanka marka meel heblaaya lagu soo tababaro iska ciidanku sidaas fawdo uma aha haddii ciidanku ciidan tababaran oo muxuu ahayd xirfadii tababareed iyo muxuu ahayd tabti gaardiga iyo waxa uu qaato ma u malaynayo muxuu ahayd inuu gacan furnaanayo oo meeshuu rabo iyo suu doona yeelahay laakiin waxay ku xiran tahay sida loo maamulo ee loo agaasimo waa maadsan tahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdullaahi Colaad Rooble waad maqlaysaa Cabdiweli shaka ayuu muujinaya waxa uu leeyahay heshiiska qaran ee lala saxiixday waxa uu noqon karo marka heshiiskaas laga soo tago idinku dawlad ahaan wax shaki ah midinku jira in ciidamadan dalba gooni u soo tababaranayo in mustaqbalka ay dhibaato ka iman karto waa maasan tahay cabdiweli walaalkay inaan saxan jeclahay labada wasaaradood waa isfaham maxay ahayd wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ay ka caawiso wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay caawiso waa ka dawladahan walaalow sidaa la socota ama generaalka oo General Ibrahim oo ka dhawaajiyaba
duruufo runtii markaas jirayaa kalifay in maxay ahayd ciidamadeena wadamada qaar tababar loo geeyo lagu soo tababaro sidii hore u dhacday 35 sano ka hor dhici jirtay in ciidamada Soomaaliya talaakiisha Soomaaliya hore loo cadeeyay khubradii u cadeeyeen in lagu soo tababaro dalal markaasi xagga militariga naga horeeyay oo kala duwan oo haystay xataa labada standard militariga adduunka la isticmaalo kala haysto hadda maxay ahayd waxaan gaarnay markii aan aragnay waxyaabo badan waxaan gaarnay in aan maxay ahayd dawladda Turkiga oo ku maansantahay laga saacido kulliyad dalka Soomaaliya ka furan gudaha dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ka furan ciidanka markaan wax yar dib u noqdo ciidamada dibadaha lagu soo tababaro markii dalka ay ku soo laabtaan 2 bilood 3 bilood oo waxaa la xareeyaa wacyigelin wadaniyada la baraayo wacyigelinta la baraayo la xareen jiray ma ahayn inta laga keeno sida loo keeno maxay ahayd Kenya ama Uganda loo keeno in lagu sii deynayo maxay ahayd beredkii ama xarumihii lagu sii deynayo meesan ahayn hadda waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano maxay ahayd sida hadda xeradan oo kale xero casri xarun casri runtii dawladda walaalaheena noogu deeqday inay naga saacido sida loo dhigaayo markii maxaa ku bedelateen oo leeyahay walaalkay Cabdiweli maba markaan wax dadkii sida wax ku bedelaysa annaga wax maanan dhiibin annagana la saacidaya naloo dhisaya maxay ahayd noo dhisa sida airportkeena casri loogu dhigay oo lagu saaciday degadeena sidaas oo kale lagu saaciday kana sidaas oo kale waay maxay ahayd lagu saacidaya ma ahan wax aan maxay ahayd saldhig inta siinay dhulkaas dawladda Turkiga aan saldhig ka siinay iyada iskale cid gali karta xaruntan waa xarun saraakiil Soomaaliyeed macallimiin jooga ayaga maxay ahayd tababarka ka bixinaayo dhinaca ka bixinaayo luuqadoodii hooyo Soomaali lagu bixinaayo dad ardayda ka qayb galaysa marka ma ahan xarun u xiran saldhig dawladda Turkiga u xiran oo bees dawladda sida hore u sheegayba ay leedahay ma marka inaan ka faa'iideysano yaa muhiim ma ahan inaan maxay ahayd shaki iyo waa cidii shaki kaga jirto oo qabiil Soomaaliyeed waa soo dhaweynayna inuu maxay ahayd oo yimaado dalka oo ogaada laakiin annaga sidaan maxay ahayd dawladda Soomaaliyeed ay raali ka tahay in aan hormarino ciidankeena xoogga dalka inaan dhisno inaan hormarino dalka gudihiisana aan ku dhisno ujeedada kaliya aan leenahay waa inta aad u mahadsan tahay General Ibrahim Maxamed Goobir ciidamada Soomaalida ah ee wadamada kala gidsan lagu soo tababaray ee hadda dalka jooga ma qabtaa ra'yi ah in mar kale gudaha dalka dib loogu tababaro oo taa intaan aanu gudbin Cabdiraxmaan waxa weey meesha tan kulliyada oo Turkiga ay dhiseen Allah karaameeyo walaalaheena ay nagu daacideen oo ay noo dhiseen masaldag militariga mise waa kulliyad oo ciidamo lagu tababarayo Soomaaliya horta tan aan kala saarno wasiirka ayaa ka jawaab filaya taas wasiirka ka jawaabo aan malaynayaa marka ninka qaba ama u fikiraya saldhigaas asaga halo si fiican saldhiga asaga ninka u fikirayo Turkiga maxaan kaga bedelanay anigu waxaan dhihi lahaa war isbitaalka oo dictor oo inoo dhiseen maxaan kaga bedelanay maxaan kaga bedelanay kulliyadaha ay dhiseen oo mataqaanaa yani maaragtay lagu tababarta maxaan kaga bedelnay wareeda adaa wax lagu taray wax aad wax kaga bedelanaysa malaha meeshaana saldhig military ma aha waa kulliyad lamid kulliyadii jaalasiyaad allaya raxam loogu magac daray oo ay midowga Sovieti noo dhiseen ayay horta lamid tahay ma ahayn saldhig military ma aha taa markaan ka gudbo oo aan u soo laabto su-aashaadii ahayd ciidamo dibadda lagu soo tababaray ma u baahan yihiin in dib loogu tababaro gudaha nacam haabaan ku leeyahay waxa weeye anigu waxaan wax ku soo bartay midowga Sovieti ayaan wax ku soo bartay midowga Sovieti markaan soo dhamaysanay waxaan dib u galnay
kulliyadan la yidhaahdo xalane ayaan dib u galnay talyaaniga ciraaq syria masar sudan intaas saraakiil ka timid baa lasugu kaangeyey meeshii halkii baan wax ku baranay macallimiin soomaaliya oo saraakiil ahaa noo timid waxaa nala barayay nidaamka iyo ciidamada soomaaliya sida wax loo bara lasu waafajiyo feri talyaaniga iyo midowda sovieti iyo masaarida way kala gedisan yihiin ciidamadooda taatikadaa kala gedisan nidaamkaa kala gedisan meesha mataqaanaa unugii oo ka yahay 11 midowda sovieti meelaha qaarkood ama mataqaanaa ciidamada talyaaniga iyo waa 9 wey qaar waa 7 bal iska daa wax kale may maqlaysaa cabdiraxmaan shukran waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga marka kama bixin marka waa waajib saaran in ciidamada mar dibadda lagu soo kala tababaray in la aruuriyo oo meel lasuu geeyo oo wax la bara waa waajib laakiin balse hadda waxaanba qabaaba waa laga maarmay tiin ayada aheyd kulliyad 15,000 1,500 wax lagu bari kara oo saraakiil xigeenkii saraakiishii wax lagu tababarayaaba la dhisay waxaan qabaa in laga maarmi doono taas walwalka jira ayaan kuu sheegaya cabdiwelina uu ka dhawaajinayo waxaa jira ciidamo soomaaliya lagu tababara oo ay dawlado tababaraan oo lacagta ayaga ay dhiibaan oo saraakiisha ayaga ay yihiin oo aan ka amar qaadan ciidamada soomaalida oo imaaraad tababaraan baa la yiri ciidamada xamra lagu tababaraa su-aashaas ayaan doonayay inaan weydiiyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga soomaaliya aan rabnay inuu noo kala xaqiijiyo wasiir waxaa jirta warkaas uu hadda sheegayo jenaraal goobir oo ah in ciidamo wadamo kale ka amar qaatay ay muqdisho joogaan oo sida imaaraadka oo kale oo isaga hadda xusay kuwo kale oo taliska maraykanka afrika ka amar qaato oo muqdisho wada jooga dhammaantoodna ah askar soomaali ah marka arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay wallahi horta sidii wax loo sheega waxba uma jiraan inta badan waa la sheegaa laakiin annagaa joogna ciidan soomaaliyeed oo maxay ahayd ama imaaraad ha tababara ama kenya ha tababarta ciidan soomaaliyeed oo aan ka amar qaadanin maxay ahayd taliska ciidanka xoogga dalka ka amar qaadanin ma jiro dalka kama jiro aniga shaksiyan anigaa tagay oo maxay ahayd hoosha hadda aan beledweyne u jooga ee kamid tahay ka shaqeynaya ilaa bay iyo boqol iyo gada iyo jubbaland oo dhan ilaa xuduuda kenya tagay haddana ilaa beledweyne iyo gobolka hiiraan oo dhan aan marayo meel kasta oo saldhig ciidan military dawladda soomaaliya ay ku leedahay wax ciidan aan ka amar qaadanin taliska xoogga dalka haba yaraatee ma jiro waa jiraan ciidamo tababar dawlado kale noo tababareen waa jiraan laakiin ciidan aan ka amar qaadanin dawladda soomaaliyeed oo ciidan maxay ahayd sababtoo ciidanka taliska xoogga dalka lambar oo ciidanka leeyahay askari walbo lambar uu leeyahay askari aan lambar lahayn askari ma ahan oo soomaaliyeed ma ahan haddii qofka tuuto iska gashto bilmatal waa laga yaabaa inay dhacdo laakiin qof lambar leh askari awaamiir qaata oo aan taliska ka amar qaadin soomaaliya jooga ma jiro waxaad leedahay waa laga yaabaa dad iska qaata tuuta inay jiraan laakiin dadkaasi tuuta iska qaadanayo ama mas-uuliyaddaasi yaa leh soo idinka ma aha waa midda aan ku leeyahay waa laga yaabaa midda aan ku leeyahay wax xaqiiqo hadda aan hayno ma lahan midda hadda generaalka oo ka dhawaajiyey waa suuragal laakiin ma jirta askari soomaaliyeed ee lambareysan oo lambar askari haasta aan ka amar qaadan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxay ahayd taliskooda ma jiro waad mahadsan tahay waxaan rabay cabdiweli cismaan
adigoo arrintaa laga dhawaajinayo ee ah in ay jiraan ciidamo Soomaali ah laakiin aan dawladda iyo taliska ciidamada Soomaaliya ka amar qaadin inay jiraan Muqdisho ma qabtaa ra'yiga dabcan wasiirka muxuu ahayto wasiirkii baa hadda arrinta ka jawaabay oo muxuu ahayto arrinta xogta ugu dambaysa haya hase ahaatee waxa weeye dadka Soomaalida dhexdooda waxaa mashhuur ka ah oo dadku muxuu ahayto aanay muxuu ahayto in badan labalabeynaynin in muxuu ahayto sida generaalku sheegay ciidamo wadamo kala soo tababareen oo aan ka amar qaadanin muxuu ahayto ciidan Soomaaliyeed ka amar qaata dibadda ay joogaan anigu bishii May kowdeedii 2015keedii anoo soo duulahayo xamar ka soo duulahayo yaan masaajidka iyo masaajidka isbahaysiga iyo dhagax tuur wadadeeda halkaas waxaan istaagay ciidan meesha dhalinyaro meesha saf ugu jirta oo carab dhex taagan tahay muxuu ahaayo khamiisyo qabta markaasaan intaan ka degay gaarigii baan weydiiyey waxaan ku yiri muxuu ahaayo arrinta markaas waxa la yiri imaaraadka ciidan ka qoray horta ceebaha meesha yaalla waxa weeye ciidamada dalka la leeyahay baa laga yaabaa inay tuute iska qabaan oo muxuu ahaayo ciidankanaga maaha laakiin waa muxuu ahaayo waa laga yaabaa tuute la iska xirto qolo kale iska carrada muxuu ahaayo iska walaaqato arrintaas waa waxyaabaha muxuu ahaayo wasiirka su'aalaha muxuu ahaayo in su'aalo kale laga weydiiyo keenahay waxyaabahaas marka wasiirka ku dhaafay in wasiirka laga weydiiyo maxaa kamid ah su'aalaha wasiirka in la weydiiyo waxa weeye wasiirku wuxuu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidanka ah oo numberka leh wax meel kale ka amar qaatay ma jirto laakiin wuxuu yiri waxa suuragal ah ciidan kale oo tuuta qaba oo meel kale ka amar qaataan in dadku soo arkeen oo laga sheekeynayo wuxuu yiri koleysna wuu maqlayaa waxa jira dhici karta inay dad tuuta iska soo xirtaan oo meel kale ka amar qaata hadalka saan u fahmay asaga hadda cadeynaya marka arrintaas muxuu ahaayo wasiirka uu yahay dawladda uu yahay yaa su'aal ka saaran tahay wasiire ma tihin waa cabduuli waa maasan yahay hadalkayga si fiican uma gaarina filaa hal marna ma dhihin askari ka amar qaata meelo kale ma dhihin wax meesha rabta ha ahaato waxaa dhici karta askari meelo kale ka amar qaato barna ma dhihin laakiin waxaan iray maadaama dalka 20 sano in ka badan oo foodo dalka kusoo jiray waxaa dhici karta tuutaha maxay ahayd dad tuutaha iska qaatay inay jiraan oo aan askar ahayn inay jiraana dhici karta oo askar la baraysan ahayn yaa dhici kartaa ma dhihin maxay ahayd meelo kale dadka amar qaata waayahay aad u mahadsan tahay waxaa jira dhagaystayaal ra'yigooda facebooka bogiisa ku soo qoray cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa isha soo mariyey nala socodsiinaya aan ku bilaabo cabdiraxmaan maxamuud oo jooga dalka Itoobiya oo ay la tahay in tababarayaasha ciidamada Soomaaliya ee shisheeyuhu ay khalkhal gelinayaan ciidamada ay tababarayaan marka laga reebo Turkiga oo ah buu yiri dawladda kaliya ee daacadda u ah dawladda Soomaaliya ha yeeshee Axmed Abshir Muuse Cirro waxa uu leeyahay ciidamada ay dhowrka wadani kala tababaraan dani uguma jirta Soomaalida sababtoo ah buu yiri waxa ay noqonayaan ciidan kala afkaar duwan oo qolaba qaab loo tababaro oo aan ku midaysnayn habka dagaalka waxa la qaba Nuur Cabdi Cabdilaahi oo magaalada Boorama jooga ay la tahay in ciidan kasta shisheeyaha tababara ay ku dadaalayaan inay askarta baraan qawaaniinta dalkooda iyo howlgallada laga fuliyo wadan nabada oo aan loo tababarin buu yiri sida Soomaaliya oo colaadi ay la degtay oo kale Maxamed Barre oo Muqdisho joogana waxa uu qabaa inaysan ciidamada Soomaaliya u wanaagsanayn inay kala tababaraan wadamo kala duwan oo wixii tababaraha loo daayay buu yiri oo lagu wareejiyo Turkiga si loo helo ciidan isku tababara sidii barigii hore Cumar Aadan oo Boosaaso jooga waxa uu soo dhaweynayaa saldhigga tababarada ciidamada Turkigu ay ka furteen magaalada Muqdisho oo uu sheegay inuu ku kalsoon yahay inay ka soo bixi doonaan ciidan Soomaali ah oo tababar fiican leh isla Muqdisho Maxamed Axmed Cartan waxa uu leeyahay
yahay haddii saldhiggan turkiga shaqadii loogu talagalay uu qabto waxaa sannadaha soo socda la heli doonaa ciidan hanan kara waddanka oo dhan. maxamed cawil oo boosaaso joogana waxa uu qabaa saldhigga turkigu inuu horumar weyn soo kordhin doono xagga ammaanka iyo tababarka ciidamada soomaaliya si dalku mar kale cagihiisa isugu taago. dalmarqays oo magaalada muqdisho ka soo ra'yi dhiibtana waxa uu yidhi waddan keliya ha loo daayo tababaridda ciidamada soomaaliya waayo waxaa yaraanaya ciidan aan haysanin farsamooyinkii loo baahnaa waxaana joogsanaya buu yidhi ciidamadii qaadka cuni jiray beddelkooda waxaa la helayaa ciidan akhlaaq fiican leh. wuxuuse raaciyey in loo baahan yahay ciidamadaasi in ay helaan mushaar joogto ah. aad ayuu u mahadsan yahay cabdinuur sheekh maxamed isxaaq. haddii aan ku laabto waxaan rabaa jenaraal goobir haddii aad maqlaysid soomaaliya cunaqabatayn dhanka hubka ayaa saaran marka iyada oon gebi ahaanba cunaqabatayntaasi la qaadin wax faa'iido ama kula leedahay in ciidamo tiro badan lasoo tababaro oo aan xitaa la qalabaynin. adeerdi waa saad u sheegtay adaaba iga boobay haddee ciidanka haddii la tababara maxay ku shaqaynayaan ma shaqayn kara ciidan aan tababar lasoo siiyey oo aanu hubkii haysanin. horeyna waan u sheegnay haddana waa ku celcelinaynaa ciidamada soomaaliya ha laga qaado cunaqabataynta hubka maanta ay u baahan yihiin oo nabadgelyada lagu soo celin karana in loo ogolaado wax diidaya ma aha. cunaqabataynta soomaaliya waxaa lagu saaray qodobo dhowr ah lagu saaray. kow meeshii ay dawladnimadii ka baxday oo nidaam low an order oo gacanta ka baxay hubkii oo gacanta u galay wax makasta iyo dad shacbi dagaal ahli oo dhacay intaas oo laisku dardaray ayaa soomaaliya cunaqabatayn loo saaray. inta ma jiraan maanta dawlad rasmi ah jirta dawlad mataqaanaa yani maaragtay kumeel gaar ahayn baa jirta ciidamadii yaa joogo dagaalkii gudahoodaha waa dhammaaday. wax maanta soomaaliya cunaqabatayn loo saara oo hubka difaaca oo ay dalkii mataqaanaa ku aan lahaayeen oo nimanka ka nabaddiidka ee nolol diidka ay maaragtay kaga adkaan lahaayeen oo hub ka fiican kana ay haystaan in la siiyo wax maanic ka dhigaya oo loogu mamarsiinan karo inaba ma jirtaan leeyahay anigu. saas darteed haddii aanan laga qaadin cunaqabataynta ciidamo la tababaray wax weyn tari maayo. laakiin waxaan aada ugu kalsoonahay jenaraal hulise waa jananka taliyaha ciidamada turkiga oo yiri wixii aan tababarna annagaa hubsiinayna ayaan horta aada ugu kalsoonahay. rajo weyn baana leeyahay laakiin caalamka waxaan usoo jeedinayaa in cunaqabataynta soomaaliya laga qaado meel ujeedow ha igu joogsanan buu yiri. haddii aanan wax kale loo dan lahayn ha laga qaado cunaqabataynta ciidamadaas si ay nabadgelya ay usoo celiyaan. anigu intaas baan leeyahay. waad mahadsan tahay cabdulaahi calaad rooble wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga soomaaliya muxuu yahay qorshaha dowladda ee qalabaynta ciidamada soomaaliya ee la tababaraya? waa mahadsan tahay. haddaba ciidamo badanaa la tababaray. ciidankan hadda la tababaraayo soomaaliyeed guutada ugu horeysa lagu bilaabayo ilaa iyo la wadaayo ilaa ciidan xoog dal ciidanka xooga dalka soomaaliya salkiisa la fariisiya waa la qalabeynayaa waana la dagaalamayaan cadowga. waxaan ku raacsanahay generaal ibrahim arrinka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya runtii marxalad xilligaasi runtii qasab aheyd yaa lagu saaray. haddana runtii madaxda sare dadaalkeeda way wadaa in cunaqabateynta hubka laga qaado. waa caqabad runtii haysata in laga adkaada kooxaha nabadiidka ee caqabad haysata waa xooga dalka. waa hubka waaweyn maxay ahayd ma ahan hubka caadiga ahee veteriga ku dagaalama ma ahan. cunaqabateynta hubka hadda waxa saaran waa hubka waaweyn sidaad ogtahayba 4 sano ka hore ee la khafiifiyey. marka caqabadaasi inaan ka gudubnaan rajeynaya haddii ilaahi yiraahdo. waa caqabad jirta runtii in cunaqabateynta hubka oo weli saaran tahay dalka soomaaliya ay saaran tahay. marka in laga gudbi doono laakiin ciidankan hadda la tababaraayo
noocyada hubka ee ku dagaalamaan oo aan ahayn hubka hadda cunaqabateynta saaran aan ahayn waa heli karaan waa la siinaya insha allah wasiir waxaad qiraysaa in cunaqabateyntu ay dhibaato tahay laakiin wax qorshaha ama tallaabo ood qaadeen dowladahaan xukuumadahaan ma jirtaa ilaa haatan ood ku doonaysaan in lagu qaado way jirtaa xukuumaddii naga horeysana way ka shaqaynaysay xukuumaddan cusub hadda aan aniga wasiir ku-xigeenka gaashaaniga ka ahayna ra-iisul wasaare kheyre uu ka shaqeynaya waxa sanooyin ay soo taagneed barnaamij sanooyin soo socda waa ma sahlan hal mar inta hal iiga qaadi tirahayd laga qaada ma ahan shuruucaa jirta nidaamaa jira waxaa jira maxay ahayd waxyaabo lagu qanciyo adduunka lagu qanciyo golaha ammaanka lagu qanciyo marka broseskaasa hadda wadnaa insha allah waa rajeynayaa in la qaadi doono waqti insha allah munaasabka noqon doonto aad u mahadsan tahay cabdiweli cismaan garaad waxaa tahay khabiir dhanka ammaanka ah ciidamo inta lasoo tababaro qalabkii ay u baahnaa inaan heli karin dalkii la geeyo laga yaabo waxyaabo kale duruufo kale inay jiraan ammaan ahaan ma is leedahay dhibaatadu hadda jirta way uga sii dari karaan walaal arrintaa muxuu ahaayeeto intaanan gelin muxuu ahaayeeto cawaaqibta ka dhalanaysa maxay tahay intaanan gelin waxaan rabaa hal minute ama 30 second inaan dul maro muxuu ahaayeeto cunaqabataynta Soomaaliya saaran cunaqabataynta Soomaaliya saaran la saaray muxuu ahaayeeto 1992 UN ku saaray markaas hadbana isu soo tirtiraysay horta waxaan ku raacsanahay wasiirka iyo generaalka ma aha mid muxuu ahaayeeto Soomaalida oo cadaalad sameynaysa ma aha cunaqabataynta xataa fiiri meesha ay ka jirto munaafaqada waxa weeye cunaqabataynta dalka la saaray dadka Soomaalida lama saarin wix allaale wixii mas'uuliyadda ee Soomaalidu hayso iyo hadda saaran tahay waxaad arkaysaa muxuu ahaayeeto hadda kuliyadan muxuu ahaayeeto laga furay Turkiga waxaad arkaysaa markaad musawirada aan fiiriyay waxaad arkaysaa taangiyaad arkaysaa waxaad arkaysaa diyaaradaad arkaysaa waxaad arkaysaa muxuu ahaayeeto hub waaweyn baad arkaysaa imaaraadku intuu soo dejiyo muxuu ahaayeeto hub iyo technique soo dejiyo iyo wuxuu geeyaa muxuu ahaayeeto dawlad goboleedyada arrintan marka waxay target garaynaysaa muxuu ahaayeeto dadka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta Soomaalida inta waxa dheer wuxuu yiri wasiirku cunaqabatayntii waa la fududeeyay oo hubka yaryar waa loo ogol yahay xataa hubka yaryar sida hadii hoos loo fiiriyo muxuu ahaayeeto sida loo fududeeyay waa si aan suubanayn waayo oo u qalmin muxuu ahaayeeto nidaam dawli ah waa in warqad loo qoraa UN-ku soo aqbasha UN-ku markii soo aqbalaan waa in mid kale loo qoraa maalinku imaanayo waa in maalinkii yimaadaan airport ka yimaadaan waa in bakhaar la sameeyo waa in number la siiyo waa in waxaasna muxuu ahaayeeto wax ciidan ma aha wax ciidan oo bakhaaradiisii iyo wax waxa weeye marka waa la sameeyaa walaalow taas waa la sameeyaa marka annaga cadaalad nooma aha haddaan Soomaali nahay arrintaas cadaalad nooma aha su-aasha waxa weeye cawaaqibta ka dhalanaysa ciidan inta la sameeyo aan wixii loogu talay qabanin wuxuu qabanayaa ciidanka wixii loo jiheeyey ama hubkii loogu talagalay ama muxuu ahaayeeto muhiimadiisii haddaan u qabanin oo aanay ka dhaadhicin oonu u yeelanin muxuu ahaayeeto rag isku gaashaanto oo hawshaas ay tahay targetkooda iyo hadafka ay gaarayaan hadduu noqon waxay qabanaysaa waxay ka leexanayaan jidkii waxay noqonayaan muxuu ahaayeeto kuwa shacabka ku soo noqda waxay noqonayaan kuwa muxuu ahaayeeto loo taag waayo waxaa ka dhalanaya waxyaabaha muxuu ahaayeeto hadda laga qaylinayo marka ciidankan oo aan cagabkiisii iyo tababarkiisa loo dhammaystirin waxay nagu reebi kartaa raad xun wasiir hadal waxaa jira cabdiweli uu jeeday oo ah in dowladda gaara uu sheegay in ciidamo ay geynayaan gobolada annaga ma hubno laakiin su-aashaas adigay ku taallaa inaad xaqiijisid ama aad beenisid dadka ku dhagaysanaya ma jirto marnaba ma jirto arrintaasi keliya aniga waxaan ka jawaabay midda hubka markii la keeno waa la tiriyaa adduunka waa la qanciyaa lambaraa la siiyaa inta kan nidaamkaas oo dhan maxay ahaata wuu maraa maxay ahaata hubka fudud la keeno laakiin arrintaas kaloo sheegaya cabdiweli marna kama jirto ma aqaana haddii meelaha wax iska fadhi ku diriya laakiin wax rasmi ahoo jira ma aha
وهاجاج دولة انت هو كانت سياسة maxay ahayd gobolka hubkiisa maxay ahayd ma aqaan hadii baabuurtan caadiga ah oo dawlad goboleedyada maamul goboleedyada baabuurtan madaxda ku socota loogu deeqa iyo dawladaha qaar u deeqa hadoo ka hadlaayo ma aqaan laakiin hub inta dawlad soo dejiso maxay ahayd geeso ma jirto degadaha iyo airboorada dalka dhamaan dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso aad u mahadsan tahay General Gobir maanta dhan waxaa laga hadlayay tababarka ciidamada Soomaalida iyo sidii ay heer ku gaari lahaayeen laakiin taariikhda hadii dib loogu noqdo ciidamada Soomaaliya burburkii ka hor waxay ahaayeen kuwo cudud leh marka loo eego gobolada kale ama wadamada kale ee dariska marka sidee ayay heerkaas ku gaaranayay kula tahay soo koobaya hadda si ma la gaari karaa sida waxay ku gaareen madax daacad maamul daacad ciidamadii oo waxa la wixii biriti iyo dabeer waxa la yiraahdo jira oo macnaheedu yahay askariga waajibka oo saaran iyo waajibka uu dawladdiisu ku leeyahay wuxuu waajib dawladdu ku leeyahayna uu ka heli jiray wixii asaga laga rabana waa loo sheegi jiray waa la tababari jiray waana lagu dhaqaajin jiray waxay ku gaareen gawadaas madax daacad maamul daacad askariga oo aaminsan dadkiisa iyo dalkiisa ayuu mataqaanaa ayay horta ku gaareen nidaamkaas xooga badan oo aad soo sheegtay ma la gaari karaa baa kuwa soo hartay waa la gaari karaa oo haddii la helo madax daacad maamul daacad haddii la helo askariga waa gaari karaa shalayna meeshii ay joogeen Soomaaliya way tegi kartaa laakiin ilaa la hayo maamulada qaarkood iyo waxyaalaha qaarkood iyo dad u fikiraya qabiil iyo qaranna isma laha way kala gedisan yihiin General aad u mahadsantahay ciidamada Soomaaliya waxaa laga soo qori jiray gobolada oo dhan baa laga soo qori jiray meel baa la sugu geen jiray maskaxdooda la midayn jiray haddii taa la helo warka waad iga gogoyni waa ku jeedaa waa la gaari karaa madaxda ay soo baahan tahay daacad wasiirka xogeenka gaashaandhigga Cabdullaahi General Gobir wuxuu ka dhawaajiyay dawlad daacad ah gudatana waajibaadka ciidamada intaasi ma lidinku hayaa wallahi generaalka ma aqaan aniga daacad waxa ka wado laakiin dawladani sida 24 saac madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku celceliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadana muhiimadda ugu horeyso waa dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed in ciidan xoog la helo waa muhiimadda ugu weyn 24 saac madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wasaaradda gaashaandhigga ay kala shaqeeyaan waxaana daliilku dhaqaalaha yar ee dawladda Soomaaliya hesho priority 1 waxa iska leh maxay ahayd muhiimadda koowaad waxa uu leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leh kadib wixii kala baahiyo runtii la sameeyaa marka daruufo dhaqaale oo xoolaha iska yar waan qabi karnaa laakiin runtii daacada laga yahay in ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay in la dhiso madax iyo shukran wasiir aad u mahadsan tahay Cabdiweli wax daqiiqad ka yarayo ika Cabdiraxmaan ka hadli maayo dawladana ugu dabcan ra'iisul wasaare khayre iyo farmaajo ma daliilkaniyo ogow shukran ciidamada waajibkoodii inay ka baxeen waan qabaa ogow General Gobir waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo baan ula jeeday waxaan rabaa inaan Cabdiweli weydiiyo Cabdiweli waxaan rabaa inaan weydiiyo Cabdiweli markii la fiiriyo hogaankii iyo markii la fiiriyo waxa uu General Gobir ka hadlayay ma kula tahay ciidamada Soomaalida inay gaari karaan heerkii ay joogeen waayadii hore adoo soo koobaya walaal waxaan u maleynayaa General Gobir su'aashaas si fiican buu uga jawaabay ciidanku wuxuu ka imaanayaa bulshadu hadday ay tahay bulsho is haysata oo masaalix ka dhaxaysa jirto
oo muxuu ahayto aanay dhib qabin waxa weeye ciidankeeduna iyadu ka imaanaya marka muxuu ahayto iyadu qab ku yeelanaya muxuu ahayto qab ku yeelanaya oo ku baraaraya ku koraya marka waqtiga ayaan hayay aad uga mahadsan tahay dhegeystayaal idaacaddii oo maxamed cabdiraxmaan soo saaray aniga xasan cali geele halkan idin kala socodsiinayay waa naga intaa waxa barnaamijka nagala qayb qaadanayay jeneraal ibraahim maxamed goobir wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulaahi Colaad Rooble iyo Cabdulle Cismaan Garaad oo ah khabiir ka faallooda arrimaha ammaanka idaacaddina waa naga intaa tan iyo kulanto dambe waa BBC oo idin leh sidaa iyo nabad geliyo